مصطفى هاي تابن haddii qof Soomaaliya ama ehelka ama saaxiibka uu kaga hor yimaado wadada gacanta uu ku soo taago oo aad ka qaadi weydo xumaan ma waa dhibaatooyinka uu keenay coronavirus waxa kula talisaa qofku inuu qaato halada gacmaha xamse marka uu xidho qofkii si fudud ayaad isu gacan qaadi kartaan salaanta loo kala qaadi kartaa si qalada ma aha haddii salaanta la kala qaadi waayo bahalani waa safety xagga caafimaadka sababtoo ah gacan qaadkii baa lagu kala qaadaya is ilaaliya waa digniin mahadsanidin السلام عليكم haddii qof saaxiibkaaga ama ehelkaaga ka mid uu ku salaamo oo salaanta aad ka qaadi weydo waxa la yaabin waa dhibaatooyinka uu keenay coronavirus marka hore waa inaad xirataa gamcaha si aad naftaada u badbaadiso بعد السفر أيضا سلام سعيد هو عافمات كل سيف يعني gacmaha la xidhanaya maaha xarago ama si karo la isku diidaya maaha waa safety xagga caafimaadka sababtoo gacmihii baa lagu kala qaadaya neeftii baa lagu kala qaadaya marka waxaan leeyahay hal laga digtoonaado salaanta cid walba la iska salaamayo adiguna inay dhaqaatiirtu talooyinka ayna siinayna aynu qaadana ay ugu horeeyaan inaynu mar walba gacmaheena xidhano iyo afkeena faraxalo si aad kaga ilaaliso caabuqa faafaya ee coronavirus